Garoonka kubadda cagta degmada Baraba ayaa hore u ahaa garoon aad loogu ciyaarayay balse hadda aanan ahayn mid lagu ciyaarin muddo ku dhawaad 2 sano ah. Garoonka kubadda cagta degmada Baraba ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah garoon isla markaasina si xamaasad leh ciyaartoyda kubadda cagta dhalinyarada ay u imaan jireen isla markaasina halkaasina kubad ay ku ciyaari jireen balse hase ahaatee hadda ayaa waxa ka bilowday garoonka 2 sano maadaama aan lagu ciyaarin waxaana ka bilowday in ay dhalinyarada iyo odayaasha ay sameeyaan isxilqaan dhanka kubadda cagta isla markaasina ay xooga ku saarayaan garoonka oo noqday garoon isla markaasina bacaad oo aad uga buuxsamay. Garoonka kubadda cagta degmada Baraba ayaa waxa uu noqday garoon bacaadkiisu aad u heer sareeyo isla markaasina burbur xoog leh soo gaaray waxaana halkada odayaashii hore oo kubadda cagta ciyaari jirtay isxilqaan dhanka bacaadka ay sameeyeen isla markaasina ay ka bixiyeen bacaadka inta badan maalmahan ayaa sii socon doona isxilqaankaasi oo sidii loogu bixin lahaa bacaadka. Sidoo kale waxaa jirto garoonka ayaa hadda laga daafuray in lagu ciyaaro kubadda cagta maadaama horey aan kubadda cagta ku dhawaad 2 sano looga ciyaarin garoonkaasi. Garoonka ayaa hadda laga bilaabay carro tuurka waxaana dhalinyarada ama kamid ahaa musharax u taagan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta shacbiyada degmada Baraba Cabdiraxmaan Sheekh Munya ayaa waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan carro tuurka maadaama uu sheegay in maalmahan dhan ayna sii socon doonaan carro tuurka isla markaasina horyaal uu ka bilowday garoonka kubadda cagta degmada Baraba. maanta ay tahay maalin Axad taariikhduna ay ku beegan tahay 13 Juun 2021 waxaan bilownay si isxilqaan ah inaan garoonka bacaadkii yaalay inaan ka qaadno kadib markii aan bilaaway horyaal oo degmada ka bilaaway waxaana igala qayb qaatay dhalinyarada iyo ciyaartoydii hore oo cuslaadeen inay igala qayb qaataan caradii aan ka bilownay si isxilqaan ah inaan ka qaadno garoonka hawshana way socotaa caradiina waa la qaaday wax baa ka dhiman inta dhimana insha Allah waa dhameystireenaa waana sii wadeynaa horumarka deegaanka iyo sportiska insha Allah. Si kastaba ha ahaatee garoonka kubadda cagta degmada Baraba ayaa dhalinyarada iyo odayaashii hore ee kubadda cagta waxa ay sameynayaan isxilqaan ku aadan sidii loo dayactiri lahaa ama loo qurxin lahaa buurarka ama carada tuuran ee garoonka kubadda cagta ee degmada Baraba.